kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qaybta 430aad ee barnaamijka tubta nabadda uu idiin soo gudbiyo howlgalka qaramada midoobay ee kaalmada kala guurka Soomaaliya UNTMIS. mahadsanid Faysa. maanta waxaan eegi doonaa dhinacyada gacan ka geysan kara horumarka waare ee Soomaaliya, hagaajin kara nolosha dadka, una horseedi kara mustaqbal ifaya. aad iyo aad Cabdi Casiis, sanado badan oo colaado ah kadib Soomaaliya waxay ku socotaa wadadii dib u soo kabashada iyadoo dhaqaalaheeda uu muujiyay kobac rajo leh oo ay sabab u tahay maalgashiga qaybaha muhiimka ah sida beeraha, kalluumeysiga iyo sidoo kale hal abuurka tiknoolajiyadda. warbixin sanadkii 2024 ka soo baxday Bangiga Adduunka ayaa iftiimisay in kobaca dhaqaalaha Soomaaliya uu sare u kacay oo uu gaaray 4.4% halka sanadkii 2023 uu ka ahaa 4.2%. iyadoo taageero ka helaysa beesha caalamka, Soomaaliya waxa ay fulisay dib u habeen ballaaran oo lagu doonayo in dib loogu dhiso dhaqaalaheeda iyo hay'adaha dawliga ah, inkastoo ay soo food saareen caqabado badan uu ka mid yahay amniga. Soomaaliya oo in muddo ah dhex dabaalaneysay colaado iyo deymo, waxay ku guuleysatay in laga cafiyo deymo badan oo ay ku lahaayeen hay'adaha maaliyadda caalamiga ah. waxaa intaa dheer ka mid noqoshada Soomaaliya ee bulshada dhaqaalaha Bariga Afrika waxay albaabada u furaysaa fursado cusub oo dhaqaale oo Soomaaliya ka hana qaada. aad iyo aad ku darsa sidoo kale fursadaha ka jira xeebta dheer ee Soomaaliya ee inoo horseedi kara dhaqaale buluug ah oo bulaalaya. haddaba si aan arrintan wax uga ogaano, waxaa maanta marti noo ah Axmed Abshir Maxamed oo ah dhaqaalayahan wax ka dhiga jaamacadaha magaalada Garowe ee caasimadda Puntland, iyo Fardowse Maxamuud Weheliye oo ku takhasustay cilmiga badda iyo kalluumaysiga. soo dhowaada labadiinuba. Axmed, haddii aan adiga kugu bilaabo, waa kuwee dhinacyada ay ka jiraan fursadaha ugu muhiimsan ee gacan ka geysan kara kobaca dhaqaalaha Soomaaliya, maxayse tahay sababtu? haddii aan ku bilaabo faktarada Soomaaliya u keenaya ama daraf garanaya inuu Soomaaliya ay yaraato kobac dhaqaale, waxaan isleeyahay waxa ugu horeeya beeraha iyo xoolaha nool oo kale. beeraha iyo xoolaha nool sidii la aaminsan yahay Soomaaliya waxay ka qayb qaataan 60% wax soo saarka guud ee Soomaaliya ama wax loo yaqaano GDP-da. sidoo kale kalluumaysiga oo kale baa ka mid ah isaguna, maadaama Soomaaliya ay leedahay xeebta ugu dheer Afrika oo kaleeto. marka waxa suurtagal ah in Soomaaliya uu siyaado dhoofitaanka waxyaabaha ay dhoofisa ama loo yaqaano exportiga. sidoo kale Soomaaliya waxa ku soo siyaadaya telecommunicationka waxyaabaha la dhaho ama isgaarsiinta oo kale, oo ay ka mid tahay meelaha ugu fiican ee Afrika oo kaleeto. waxyaabaha u keenayana in Soomaaliya potential ku ahaato isgaarsiinta wax ka mid ah mobilka lacagta loo isticmaalo oo kale ama lacaga lagu kala gudbiyo oo kale iyo digitalka kaabayaasha digitalka. maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan horumarka dhaqaale ee Soomaaliya? maxayse yihiin tallaabooyinka gaarka ah ee ay tahay in la qaado si caqabadahaasi wax looga qabto? waxaan isleeyahay caqabadaha Soomaaliya hor yaalla waxaa ka mid ah kobcda dhaqaale, waxaa ka mid ah xasilooni darrida siyaasadeed iyo amni darrada, maadaama Soomaaliya mararka qaar uu khilaaf Soomaalida uu ka dhex jiro. taasuna maaragtay waxa ay dib dhigi kartaa maalgashi oo kale ayay dib dhigi kartaa. sidoo kale caqabadaas oo kale waxyaabaha loo gudbi karo waxaa ka mid ah in la xoojiyo amniga iyo maamul wanaagga iyo dib u heshiisiin in la sameeyo. qodobka labaad aan isleeyahay caqabad buu noqon karaa waxa weeyaan maamulka oo xoogaa liita oo kale, ama marmarka qaar musuq jiri kara. marka taasina maaragtay waxa lagu xallin karaa in maaragtay hufnaanta la xoojiyo, sidoo kale hay'adaha dowliga la xoojiyo. sidoo kale caqabada saddexaad waxay noqon kartaa in maaragtay kaabayaasha dhaqaalaha in ay liitaan oo kaleeto sida wadooyinka. marka taasuna maaragtay waxay dib u dhigi kartaa horumarka. marka kuwa haddii la xoojiyo oo la hormariyo wadooyinka iyo dekedaha iyo waxay keeni kartaa in maaragtay ganacsiga wax soo saarku uu siyaado. caqabada afraad waxaan isleeyahay isbedelka cimilada
iyo arrimaha deegaanka kuwaas ayaa sababa maxaa yeelay abaaraha dhaca inta badan waxa kale oo dhaca in maaragtay deegaan guurka ama waxa la yidhahdo maaragtay in kaymaha kale ay guuraan oo deegaankii u guuro taasna marka waxay noqon kartaa caqabad. ugu dambayn maxay yihiin istiraatiijiyadaha iyo siyaasadaha la hirgelin karo si faa'iidooyinka dhaqaale ee dalka ay u gaaraan muwaadiniinta oo dhan iyadoo aan cidna laga tegin? dadka aan cidna aan laga tegin horta waxa fiican in maamulka oo kale ama in la hagaajiyo maamulka iyo hay-adaha dowliga sidoo kale in maaragtay waxa hoostigaysa marka taas in la xoojiyo waxa la yidhaahdo federalismka hadda soomaaliya ka jiro kale ama arrimaha federaalka kale in la xoojiyo sidoo kale in dhaqaale oo kale loo qaybsado si isleeg oo kale in lala diriro musuqa in la xoojiyo maaragtay hufnaanta iyo isla xisaabtanka waxaan isleeyahay oo kaleeto in maaragtay meelaha tuulooyinka ama miyiga iyo bulshooyinka maaragtay soomaalidu maaragtay ee takoortoo kale ayagana in maaragtay in sara loo soo qaado in ganacsiga yaryar iyo beeraha iyo kalluumaysiga in waxa weeye la xoojiyo waxbarashada oo kaleeto in la horumariyo xirfadaha in maaragtay waxbarashada marka sidoo kale waxaa lagu horumarin karaa in xirfadihii iyo shaqadii suuqa oo kale xirfadihii ku habboona oo kale in dadka la baro in maaragtay arrimaha maaragtay casriga ama arrimaha digitalka oo kale in maaragtay dadkii la baro sidoo kale in dadkii ay helaan waxa la yidhaahdo maalgashi dhaqaale ama dhaqaale ku samayn karaan maalgashi sida mobilka oo kaleeto bangiga laga isticmaalo in la xoojiyo in dadkii maaragtay ganacsiyada yaryar in loo furo oo loo maalgeliyo diasporadu maaragtay ay ku samayso maalgashi ballaaran sidoo kale in maaragtay la sameeyo waxa la yidhaahdo ilaalinta bulshada iyo adkeysiga ama waxaan afka qaad lagu yidhaahdo social protection and resilience. aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay dhagaystayaalkaasina wuxuu ahaa axmed abshir maxamed oo ah dhaqaaliyahan wax ka dhiga jaamacadaha magaalada garowe ee caasimadda puntland oo marti noogu ahaa barnaamijka tubta nabadda. welina dhegaystayaal waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijka tubta nabadda balse iminka aan u gudubno wareysi aan la yeelanay farduuse maxamuud wehliye oo ku takhasustay cilmiga badda iyo kalluumaysiga. waxay ugu horeyn ka jawaabaysaa su-aal ku saabsan sida ugu wanaagsan ee ay soomaaliya uga faa'iideysan karto kheyraadka dihin ee badda si ay u kobciso dhaqaalaheeda. waa sax soomaaliya kheyraadkeeda sida loo baahnaa uguma faa'iideysan. soomaaliya waxaan leenahay qaybta ugu dheer Africa. productionkeena ama wax soo saarka badda wuxuu ku jiraa adduunka meesha afraad ama shanaada la dhahaa ee ugu wax soo saarka badan ee meelaha ka dhacaan abweyninka waxaa dhahno ama nafaqada ee quutaan kalluumada yar ee badda guntooda hoos jiro ee kor imaanaya. soomaaliya saa ognahay in muddo kheyraadkeeda uu iska dayacnaa oo open resources ka ahaa dad kale ka faa'iideysanaya dadka localka ama dadka deegaanka kama faa'iideysan. waxaan u wacan in ay jirto caqabado fara badan sida inaysan heli karin qalabkii casriga ahaa ee ku filnaa inay kusoo kalluumaystaan. waxaa kaloo jiro inaysan jirin meelo kalluunka lagu keediyo ama infrastructureka dhan barafeynta kalluunka ama warshadeynta ama wadooyinka la isticmaala all infrastructureko dhan inaysan hagaagsanin. waxaa kaloo caqabadaha kaloo jira soomaaliya markii laga soo tago waxaa jiro fursado fara badan oo laga sameyn karo dhaqaalo fara badan sida haddii oo maalgelin lagu sameeyo dhinaca horumarinta infrastructureka in laga sameyn karo ilaa suuqyada adduunka inaan gaarno. soomaaliya kalluunkeeda maadaama hadda tayo yar yahay inaysan meel gaari karin. waxaa kaloo jiro fursado ecotourismka ama deegaanka. soomaaliya waxay leedahay xeeb aad u dheer qurux badan xeebo oo
ka heli kartid coral reefka animalska kala duwan sida dolphinska iyo whaleska oo deegaan dalxiis oo qurux badan in laga samayn karo. Firdowsa, istiraatiijiyad noocee ah ayaa la hirgelin karaa si kor loogu qaado awoodda bulshooyinka maxalliga ah ee Soomaaliyeed si ay si joogto ah ugu maareeyaan ugana faa'iidaystaan kheyraadkooda badda? Si loo kobciyo bulshooyinka ku deersan ama kalluumaysatada ah ama bulshada kale deegaanka xeebeedka, waxaa u baahanahay horta waxaa jiro in aqoon yari ay jirto. aniga kheyraadkan waa haysanaa laakiin aqoon yari fara badan ay jirto in aqoontii dadka kor loo qaado la baro in sidii kalluunkan sustainable ama maanta keliya maahane mustaqbalkaas sida loogu faa'iidaysan lahaa in la baro dadka in sidoo kale la baro eco friendly geariska ama qalabka deegaanka saaxiibka la ah in ay isticmaalaan in wasakheynta badda ay sameynayaan oo kale ama qashinka ay ku shubayaan oo kale in la baro ay tahay dhibaatooyin gaarsiin karta deegaanka so haddii aqoonta bulshada xeebeedka ama bulshada dhammaan ahaan la horumariyo waxay ka qayb qaadanaysaa in kobac dhaqaale iyo bulshaba laga sameeyo dhanka dhaqaalahina buluugga ama wax soo saarka badda. waxaa kaloo jirta in gaab weyn uu ka jiro ama in muddo ah maamulka aad u hooseeyey shuruucda way jirtaa laakiin ma dhaqan gelin dadkiina kuma dhaqmaan oo dadkii waxay u barteen waxa baddan iska furan oo qof walba soo doona ka samaysan karo marka in maamul oo la sameeyo oo dadkii bulshadii laga dhisaa community based management in la sameeyo in communityga dadka deegaanka ka imaado dowladdii iyo maamul goboleedka wada jira inay wada shaqeeyaan. ugu dambeyn taageero noocee ah ha ahaata mid dibadeed ama mid gudaha ah ayaa gacan ka geysan karta abuurista jawi ku habboon kalluumaysiga waara oo barwaaqo dhaqaale u horseedi kara Soomaaliya. si loo gaaro dhaqaalo ama sustainable fisheries Soomaaliya waxaa loo baahan yahay kow in horta adduunka dhan ama Soomaaliya iska kaashato sida kalluumaysiga sharci darrada anaga kalluumaysatada waa kuwa iska danyar waxa dhibaatada badan geynayo waa kalluumaysiga sharci darrada in wax laga qabto oo as internationally iyo locally-ba in wax looga qabto oo la joojiyo in research badan la sameeyo baaris dhanka haddii naqan lahayd maamul wanaaga sida hadda wax xaaladda oo kalluunka badda ama stock ku sugan yahay lama oga taasoo kale in laga baaris badan laga sameeyo in la horumariyo maamulka deegaanka governance-ga ama maamulka badaha sida wasaaradihii oo dhan shaqadoodii inay aad u qabtaan oo ay security ahaan ama law enforcement-ga ama in la dhaqan geliyo shuruucda deegaanka in la sameeyo taas sidoo kale in laga international support oo kale in hay'adaha adduunka ama waxay ka caawin karaan in u sameeyaan in dadkii technical capacity uu yar yahay dadkii waxaan yaqaanay in kor loo qaado la badiyo haddii naqan lahayd sida World Bank ama FAO ama other organizationska kale ka shaqeeya inay capacity-ga dadka kor u qaadaan oo shaqada more people si loo helo dad fara badan ay qaban karaa waxaa kaloo loo baahan yahay Soomaaliya hadda maadaama ka East Africa Community ku biirto kale in waxyaabaha regionalka kale inay kasoo qaadato ka barato ku dhaqanto. aad iyo aad ayay u mahadsan tahay taasina waxay ahayd Firdowsa Maxamuud Wehliye oo ku takhasustay cilmiga badda iyo kalluumaysiga oo marti inoogu ahayd barnaamijka tubta nabadda iminkana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heesta Soomaali u diida ceeb oo ay noogu luuqeynayso fanaanada weyn ee Maryan Mursal Ciise. Soomaali u diida ceeb naftina u diida cayb
dhaqado labada webi ee dureera dalagacii dow wanaagsan abuurka ku daadi weeyo khayraadka ka doona weeye siduu geelu hawdu daaqo laguna u diinaahiyeyso danyarteenna eegto siday diibtuugu taalo labadu isdaabooli waayo dunidu waynagu la yaabtay heestaasi soomaali u diida ceeb oo ay ku luqeynaysay fanaanada weyn ee maryan mursal ciise waxay ugu dambeysay barnaamijkeenii tuubta nabadda oo toddobaadkan halkan ay idinkala socodsiinayeen cabdicasiis maxamed diiriye iyo anigoo ah faa'iise cabdi warsame fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiina adinkoo noogu soo hagaajin karaa barta aan ku leenahay facebook oo ciwaankeennu yahay tuubta nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaargarowdaan qaybtii ugu dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysanaysaan